Yeah, yeah, yeah. Sarayga Studio. kole wuxuu dhahay horta shaqada waan ku siiyo dhahay bishiin waa $200 laakiin adiga wili imaanan iga garbixin oo dhahay maxay tahay garbaxa sheegaysiisa dhahay shaqada si walaaltinimo ii siisay waxaana ku direys maxay tahay ayni ma ahan magaceeda saxda ah waxa ay ku nooshahay magaalada Muqdisho iyada iyo aabaheed kaas oo ah waalid waqtigu uu ka hiiliyay wax dhaqaalahana aanan haysan si gabadhiisaan yar ay horumar u gaarto iyadoo ka duuleysa horumarinta nafteeda iyo tan waalidkeeda waxa isku dayday inay shaqo u doonato dhowr xarumood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin jaamacado hoteelo iyo shirkado balse arinta la yaab kale waxay noqotay in gabadhan lagu dirqiyay in baahida shaqo ee heeso darteed inay ku bedelato galmo aan sharci ahayn markii ay ka diidana waxa ay weysay codsigeeda shaqo haddaba ha inooga sheekayso dhacdada koowaad ay la kulantay gabadhan oo aan u qarinay wajigeeda ilaalinta sumcadeeda iyo khatar amni arinta ugu muhiimsan waxa waaye maalin ayaan ka doontay jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya mid ka mid ah waxaan ka doontay shaqo nadaafad ah lagaga sheegay mid ka mid shaqaalooyinkaas qaybta u fadhiya shaqada dadka siiyo oo aan ka doontay lambarkiis gaar ahaan wuu isiyay oo wuxuu dhahay shaqadu way banaan tahay bishiina waa $200 hadii aad u baahan tahay nadaafad waa soo gali kartaa waa midaan jaamacadii markaa tagay wuxuu igeeyay jaamacad aysan micnaha oo laga qabanaynin jaamacad laga guuriyo oo wax micnaha yaalino oo dhamaatay oo igeeyay wuxuu dhahay meesha ka shaqeynayso waa halkan sida loogu shaqeeyaa dhaa meel micnaha oo wada bus waay oo mar hor laga guuray mana micnaha ilama ah meeshan in shaqaale loogu baahan yahay sidee micnaha qof ma joogin cid leed aniga asaa joognay anigoo marka cabsanaya ilbaabka galay asiga wuxuu idhaa soo gal waa halkan oo idhaa markaas aan dhahay halkan qof kuma jiro waana meel oo wasakh ah qof oo micnaha mar hor ugu dambeysay waa sida u gala oo nafsideeda ku aamina markaas oo idhaa horta adiga shaqo ma rabtid aad horta soo galba hadaa cabsanaysid micnaha waaba iska bixi kartaabo shaqo kuma hay okay anigoo sida soo cabsanayo salii nabiga afka iskaaga qabsada oo ilaahay garabka micnaha garab weydistay oo waan galay kadib markaan galay oo wuxuu idhahay 3 qol wuxuu ii furay oo eber oo baaba oo ii furay kadib oo idhaa waa kina meesha ka shaqeynayso waa halkan nadaafad aad ka qabanaysid okay aan walaalkayga aada uu mahadsantaa dhaa shaqada maadaama ICC aan dhahay okay markaas sidaas u soo baxnay oo aan imaanay qaybtii maxay dhahaan banaanka u soo socono markaas oo ilaahay istaag ay abaayo kole wuxuu dhahay horta shaqada waan ku siiyo dhahay bishiin waa $200 laakiin adiga wili imaanan iga garbixin oo dhahay maxay tahay garbaxa sheegaysiisa dhahay shaqada si walaaltinimo ii siisay waxaana ku direys maxay tahay kadib uu dhahay garbax waa dareemi kartaa codsi iga tahay abaayo ina ii fududeysa rajeena codsigeyga ina ii sii sheegtay soo kama fiicnaa dhaa codsigaaga hadii lacagtaaya dhahay diyaar waa marka shaqada bilaabo bish ugu horeyso inta ii soo raadisay waa ku jira waa ku siinaya markaas oo idhahay ma oho dhaa lacag inaadan lacag haysan oo u jeedaa laakiin wax muhiim ah haysa wax muhiimka ka codsanaya ina ii sidoo idhahay waan dareemi kartaa okay hadii sidaas taana mayaan dhaa maribiyaan dhahay wax muhiimka waa dareemi kartaa wuxuu idhahay maadaama gabar tahay oo anigana micnaa wiil dhalinyaro aan ahay waxyaala lawaan kan waa ogtahay oo dhahay micnaa waan dareemi kartaa oo dhahay ina micnaa ii fududeysna rajeynaya waxyaalaha micnaa waxa kamid ah ina micnaa aan wada galmoon ama micnaa waxyaala aan sameeyno hadii aan raali ka tahay shaqadan diyaar waa bari baa soo gali kartaa sidoo kale waxaa jirta dhagar kale oo ay la kulantay gabadhan laakiin ugu dambeyn ka badbaaday maalmaha kamid ah gabadha shaqo ka codsaday gabadhi marka waxay igu dhahday hotelkaas shaqo ka banaan wiilka lambarkiisa ku siina wiilkan waco okay gabadhi markaan wacday oo lambarka isiisay wiilkiya micnaa wacday kadib wiilku wuxuu idhaa waa runtii qofta ku soo sheegtay shaqo way ka banaan tahay hadaa soo galaysid adiga waa ugu dhahay kadib markii oo sis igu dhahay waxaan dhahay bishi waa imisa dhahay $400 oo dhahay marka $400 idhahay aad ugu farxay oo waan micnaa aad farxadeeda lama soo koobi karo oo waxaan dhahay maanta ma sha Allah oo ilaahay ku soo warmay oo bishi $400 hada qaadanaysa nadaafad aad wallahi nolosha gurigiin uu buuxsan kartaa isdhahay
kadib markii sidaas dhacday wiilku wuxuu idhahay waxaa laga rabaa AD ku gashid meesha iyo waxyaala oo damiin ah laga rabaa oo idhahay okay insha Allah soo raadin doonaa ana shaqada laakiin qofbaha iga siinaa aniga aad ugu baahanaa wiilku wuxuu ogaaday markii inaan shaqada aad ugu muhiimsanahay oo duruufana ay haystaan wiilku wuxuu idhahay abaayo horta ana shaqale i weydiisiyo macnaa wixii ima weysii weydiino meesha laga sameeynayo sida akhbaarta ay tahay waxaan u jeedaa qof oo macnaa hami leh oo ina shaqaysato oo daacad u tahay u jeedaa oo macnaa dad badan jiraan oo sidaan oo ka sii baxeen oo okay shaqooyinka waxa kamid oo la qabanayo oo waxa jira nadaafad waayo laakiin haddii macnaha soo heshiiso $10 soo gashid oo shaqada nadaafada oo hotelkan ka shaqeynaysid waa mara mustaqbalkaada meesha ku ba'ay oo maxaa kamid in macnaha oo marka oo macnaha qolka soo galaysid waa qolala aad hagaajinay aan nadiifin qof biyo u keenin nadaafada haysa inta laga taabto gadaal haga soo marxabadka laga taabto kama hadli kartid oo oo sidaas yeelay marka waxaa yeelayo dad oo wuxuu dibadaha ka imaadeen iyo dad Soomaali oo macnaa oo dhaqankii ka tageen oo oo gabdho badan sidaas oo kale ku hayaan oo aan ka hadli karin oo kuwaas aan maanan keenin laakiin shaqada adaa macnaa aan ku keenuya oo marka wuxuu lama sidaas da ku gali kartid waakas oo macnaa gabarna waa taa oo hadii mustaqbalkaada barbtido in sidaas lagu taabto waxa la wadaagtina gabarta waa la wadaagay oo gabar ayaa hadii gabar tahay ma yoo mustaqbalkaada in lagu ciyaaro ma rabo arintan hadii meeshan soo gashidna oo waa mara macnaha oo xabadkaada laga taabto gadaal laga soo mar meesha ku ba'ay oo hatta oo had 400 ku shaqeynayo oo waxaaba lagu dhihi karaa oo dhacdadii koowaad ay la kulantay gabadhan haddii aan ku noqono waxaa dib maalmo kadib u soo rogaal celiyay xiriirka ninka ka ah kaaba shaqaalaha jaamacadda ay ka doonatay shaqada kaas oo la wadaagay fariimo uu kaga dalbaday mar kale inay wada kulmaan una fududeyso galmada uu ka doonayay haddaba maxaa ku kalifay in shaqo ay raadiso gabadhan oo 19 sano jir ah wallaahi waxa igu kalifay arrimo dhowr ah hooyadeed aabahay way kala tageen hooyadeed waxay jirtaa Sanca jirtaa Yemen dagaal xaga ku haystaan aabaheygana waa macallin dugsi xaasoo leeyahay dabcan eedana waa la joogaa waan dareemi kartaa marka eedan la joogtid xanuunka leedahay waxyaalahaas ay igu kalifay iyo waxbarashadeeda sida uu macnaa ugu dhameysto iyo hooyadeeda sida aan ku caawan wallaahi iskuulka waxaan ugu baxay fasalka 8aad shaqo la'aanta iyo nidaam la'aanta dalka ka jirta ayaa keentay in dhalinyaro badan ay dalka ka tahriibaan sidoo kalena haween badan ay kala kulmaan marka ay shaqo u doontaan xarumaha dalka ka jira caqabado badan tani ayaana sii noqon doonta mid sii jiri doonta haddii aan wax laga qaban fadlan shargaray hadda shargaraysaan birita 10 fi amad yeelisaan هذا شرقري هديك أنا قلت واحد أنا يدوش شيء هدي لك هذا شرقري كل شرقري هذا هدي لك في دماغي شرقري كل جين all of you نار كله في بدنك أعرف كيف الحرة يعني هدي لك وعن بس صدوا إلا وبين إلا صاحب بان كلنا هي بين ولا شرقري يلا شرقري